الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta oo sanadkii 2024 yahay waxaan nasiib wanaaga inaanu kala saxarayno memorandum of understanding dowladda federaalka Ethiopia saawtihiin ba qof waliba ama madaxweyne kasta wuxuu hirgeliyaa danta dadkiisa رئيس وزراء إثيوبيا فدرك إثيوبيا وحا ونقعد صدي إنه وذكرله understanding إن أي بطة كهران ميل أي دجان عيدا كودو ما دام إليه عيدا كي مريس كهاب ميل أي دجان إنك السومال لنا وحنو ابن بدن إثيوبيا يقرن كمودي سنيني إن لنوا قوسنا قرن مدينة ومدبض المغرب waxaanu farxada wanaga mahadnaqayaa ra'iisul wasaaraha Ethiopia ba sidii aanu ku heshiinay ay ku qoran halkan in anaguna aanu ogolaano 20 kilomitir badda iyaguna markaaba ay naaqoonsadaan oo qaranka Soomaaliya dawladda horeysay ay noqon doonaan marka la saxaashiska 20 kilomitir xeebta ciidamadooda in ogolaayeen deegaan ciidamadoodu waa liis waa kiro ma hadhu la siinay بلاش نما waxaan marayaa arintaasi inay tahay mid labada dalba u dana si xoojinaysa waxyaalaha kale ee nolosha oo la iska kaashado oo dhan inagu waxaan leenahay badii Ethiopia waa dal weyn oo dad badan oo qaniya oo u baahan inay inala wadaagaan wixii horumar oo dhan waan laga balan qaadeen insha Allah berbera waxa ka mid noqon doontaa dekadaha ay Ethiopia soo marayso wixii ay soo dejinaysa qayb kamid ah kolba inta aan horumarno aad iyo aad baan u mahadnaqayaa ra'iisul wasaaraha insha Allah dhawaan inuu noqdo Ethiopia ay noqoto dalkii u horeeyay ee Soomaaliya aqoonsada anaguna aan noqono dalkii u horeeyay ee ogolaada 20 kilomitir badda iyo waxa aad iyo aad